khayraadka xoolaha gaar ahaan geela waa kuwa ugu qaalisan ee ummadda Soomaaliyeed ay ku dhaadato. Geela waxa uu Soomaalidu u leeyahay muhiimado kala duwan sida mid dhaqaale oo bulshadu wax ugu jiraan waxyaabaha ugu qaalisan ay ka ganacsadaan sida caanihiisa, hilibkiisa iyo haragiisa. Waxa kale oo uu leeyahay muhiimado dhaqan oo haday tahay bixinta dhiigga ama yagleelida reer cusub oo dhaqan ahaan ugu muhiimsan tahay yaradka hibada Suuriyada. Guud ahaan munaasabadaha ugu sareeya ay tahay in geela lagu loogo iyo in meelaha qaar uu yahay astaanta qaranimo oo ay u isticmaalaan sida gaadiidka oo ay rartaan awrta. Muddooyinka hore waxaa lagu dhaqan jiray geela kaymaha leh hawdka iyo buuraha guntooda, halka qaybo ka mid ah bulshadeena geela dhaqata ay aaminsanayeen inaan geela xiridiisa laga bedelin haddii aynan geedi jirin. Balse muddooyinka dambe waxaa soo badanaya in geela nidaam casri ah oo la jaanqaadaya nolosha magaalada lagu dhaqo duleedka magaalooyinka. Deeq Weerar waxa uu ka mid yahay qurbo joogta deegaanka u dhalatay, waxa uuna ku nool yahay dalka Mareykanka oo qaar ka mid ah bulshadeenu u arkaan jannada adduunka. Deeq Weerar waxa uu Mareykanka uga soo jarmaaday inuu duleedka degmada Danood hab casri ah ugu dhaqo geela. Haddaba maraan u kurgalaynay qaabka dhaqashada geela ayaa waxaan wax ka weydiinay waxyaabaha ku kalifay in waqtigan uu bilaabo dhaqashada geela. Deeq Weerar ayaa tilmaamay in nidaamka dhaqashada geela uu yahay mid ka duwan sidii hore oo uu doonayo inuu ku dhaqo duleedka magaalooyinka si looga faa'iideysto caanihiisa. Waxaan ku noolahay dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota, magaalada la yiraahdo Minneapolis. Magaalada muddo dheer baan ku noolaa, 22 sano yaan wadanka ku noolaa. Anoo wiil yar oo dhalinyaro oo geel jira ah yaa wadankan laga kaxeeyay. Kolkii wadanka aan tagay wixii aan moodahayay inay yaalaan uguma tagin. Shaqo yar oo aan naf lahayn oo 8 saacadood ah baa waxa weeye madaxna loo geliyay. Shaqadii kuma filla biilashii iyo haddii la ku roonyahay wixii kale aad qabsan lahayd isma gaarayso. Deedna waan fikray waxaan idhi waniyo hadda wadanka muddo dheerna waad joogtay. Sidanina waxa weeye horumar ma ahe maxaad samaysaa maanse waan fikray. Waxaan is alla ilaahay shaqadan 8 saacadood haddaad 4 saac oo part time ku darto miyaadan geel tabci karin maanse. Miyaadan geel tabci karin maanse. Waxaan go'aansaday marka shaqada full time kaana inaan biilasha ku dabaro. Shaqada part time kaana inaan maalin labadii asbuucba inaan qaalinka iibiyo. Ganacsiguna kolbo ka taqaano iugu faa'iido badan yahay. Geelu ganacsi buu noqon karaa. Anigu waxaan damacsanahay inaan ka duwo sidii hore ee geela loo dhaqan jiray. Si ka duwan ma rabaa inaan geela u dhaqo. Dhaqashada geela casriga ah. Dhaqashada casriga ah ee yahan dambe aad ku soo baatay. Anigu dhaqashadaasaan doonahay geela inaan ku dhaqo. Waagii hore geela nin baa lahaan jiray, wuu iska daba socon jiray. Isaga iyo geelu buu isla rafaadi jireen. Ninkii boqolka halaad shalay lahaa oo maanta ka faramadow baad arkaysa. Maanta laakiin geelashu waa la fariisiyay. Geeli wuu nastay, ninkii raacahay wuu nastay, waa la manaafacaadsaday. Haddii alla ku roon yahay ganacsi buu noqday. Kolka sida dukaanka kale way geelu. Dukaanka waliba macdalahay uu ka fiican yahay. Waayo neefka geela waxa weeye waa lacagtaadii oo bangiga ku taala oo interest free ah oo xalaal ah kugu socdo. Interest xalaal ah yaa kugu socdo. Tusaale ahaan hasha markaad gaddo $500 baad siisay ka soo qaad hashu way dhali way rimi haddii la ku ruuxin way dhali da' walbana way ku dhali. Neefka ay dhasho 3 sano hadduu joogo 500 baad dib u gadi kartaa. Hadduu lab yahay. Hadduu dhadig yahayna waxaad samayn kartaa wad xirada u deyn kartaa oo laba jibaar bay ku noqonaysaa. Marka ganacsi aan lagu khasaareynin oo la tijaabiyay
weeyaan